بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة حلقة وحا يرادا سفارته عذر باقالي وان باري وان ايغي وحان اوغادي إن وزير الدولة أرمها دبدو أوتوماتيكو هايو تدكي شقينا يي إيكا شقينا يي سفارة ووزير الدولة وزير ماها نيتشوغا مرايكنكا أيا إيشاغي oo iigu bishaareeyay in uu ka noqon doono qadar safiir waxaana hawshaa iigu jira buu igu yiri wasiiru dowlaha waxaan ku wariday mabruuq mar haddaan cali daacuun baahidiisuba yar tahay dowladda wax ka rabin mid hore wax ka rabin mid soo socotana aan waxbaba ka rabin dee adeer mabruuq haddii lagu soo bedelayo arrinkii waa baaray waxaan ogaaday hadalkii la oran jiray hebelow waxaad ka mid tahay raggii curiyey dowladdan raggii badbaado qaran raggii keer iyo kan war abaalgud waxaanu kaaga dhigaynaa meel soo eego aanu qof kale kaaga qaadno warkii waa rumaystay mar haddii aan warkii rumaystay haddana waxaan sii xaqiiqsaday kolkii aan maqlay inuu cali baalcatoorey kaga hayo dhabarka gabadha joogta safaaradda qadar wa min aayaatihi waa power abuse waxay iigu muuqatay ileen dowlad yaqaan baan hoo waxaan ka shaqaynayaa maanta shaqaynayaa midna garan maayo dowladee inuu adeegsanayo awoodda madaxweynaha xataa uu wasiirkiisii dhaafay ee ka sarreeyey taasaa waxay sii caddaysay arrinta markaa qadar meelo badan baan ka ogaaday oo qaarkood ay ajnabi yihiin waruuc qodobkaa intaasaan ku dhaafaya madaxweyne xasan sheekh fariintaa iga gaadhsiiya madaxweyne dalka daadaa xukuma dee power abuse baa socda haddaad waxaan raalli ka tahayna dadka beddel oo xaaq oo dad aan waxba aqoon keen haddii kale ummaddan cabanaysa dee cali baalcad ka qabo uray fariintaa xasan sheekh iga gaadhsiiyey alxaqiiqa waan maqlaayay taliye hebel baa la beddelayaa oo taliye hebel baa lagu beddelayaa wallaahi inaana rumaysan markaan arkay arrintan cali baalcad xisaabtii oo dhammi waa isu kay qabatoo waa rumaystay sidee baa markaa uu qofkii u shaqaynayaa qof wadnaha toorey lagaga hayo ma shaqayn karayo sidee baa caalamku inoo aaminayaa ma garanayo sidee baynu inagu u helaynaa kaadir wax garanaya oo ka soo baxa shaqada garan maayo alxaqiiqa taariikhda aan soo joogay oo anigu aan hubo waxaa ka mid ah soomaaliya waxay safaarad ku lahayd dhinaca badda ilaa 10 safaaradood baa halkaa iska xigay
safaaradda maxamed siyaad bare allaha u naxariistay baa dhisay. dowladda qatar waxay u baahatay in laga dhigo dalxiis, dabadeedna safaarad walba lacagta intay siiso ay qiimaysay ayaa haddana goobta ay ka dhisan lahayd la siiyey. safaaradda saaka ay ku jirto dowladda Soomaaliya 2 jeer baa lacagteeda laga qaaday qatar, waxaana qandaraas lagu siiyey nin Soomaali ah. imikana halis bayba u tahay inay dunto. waxyaabaha noocaasa waa taariikh aan soo arkay. dumarka markaa meeshaad u dhiibto waad ugu imanaysaa. damac ma leh, boob ma leh. waxay ka fakeraysaa dalkii iyo wadaniyad iyo inaanay ceeboobin. laakiin kulliba 100% inay ragga dhaamaan waan ogahay. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. caalamku siduu inoo aaminayaa? maxaynu se caalamka ka nahay? caalamku wuxuu inoo arkaa كلنا حراميين وكلنا كذابين ولا لنا وطنية. ميل كستا سفارة كستا الصومالي لذي وعالم ككفران دولتها أي لشوكت لحدي برود بصفير بالكينا يا وابوبا يا مع ان وحالا سينا يا ما محنا ارضي وإبسنا يا وحالا وحلا يرادو حرمو او اينو كلنا هاي بنانكا ما جرتو. سببتانا وحاوية وحاقوة عن الدولة ده مرلبات wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynahaba waxaan leeyahay wasafaaradihii cudur baa galay, wasafaaradihii waa qaylinayaan, wasafaaradihii dhib baa haysata. iyagu awalba dhaqaala daro haysay, haddana cali baalcad baa ugu darsamay oo doonaya safaarad walba inuu qof keensado, especially safaaradaha hadda uu cali baalcad ku yahay haari uu ku yahay. dee qatar baa ka mid ah. wamaa calaynaa ila albalaaqu lmubiin. anigu waa sheegay, wax ka qabashadeedana malihi. wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iskale in ay dee ninkan power abuse-ka ah ee awooddan anigu aanan garanayn meeshuu ka keenay, dee ummadda ha laga qabto, wasaaraddana ha laga qabto. arrimihii dibaddu aad bay u foolxun yihiin. alxaqiiqa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.